maalinka jumcaha inuu yahay maalin qoraxi u soo baxdo maalinka ugu fadli badan oo uu yahay oo ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khasaa'ista iyo waxyaabaha gaarka ah ee ummaddan ummatul muxameda uu ku gaar yeelay aadaabta iyo axkaamta maalinka jimcaha ah waxaa walaalayaal ka mid ah aadaabta maalinka jumcaad nabigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu noo jideeyey in la akhriyo maalinka suuratu alkahfi alxamdu lilah aladi anzala cala cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja. suuradda ayadaa nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qofkii maalinka jimco akhrista waxa uy u iftiimisaa inta u dhaxaysa jimcaha iyo jimcaha ku xigo. fadli badan baa marka ku jira suuratu alkahfi in la akhriyo. waxaa ka mid a aadaabta iyo axkaamta maalinka jimcaha ah qofku inuu aamuso oo khudbada la akhrinayo uu ihtimaam siiyo, attentionkiisa inuu siiyo khudbada. maxaa yeelay saan soo tilmaanay waa maalin ciido weeye, waa ciiddii usbuuca, waxaa loogu talagalay wacdi, dadka in la wacdiyo oo qofku waxa weeye quluubtiisa ay qoydo oo usbuucaasoo dhan uu noqdo uu qaato sahaydii ku socon lahaa. sidaa darteed ayaa loo jideeyey jimcaha khudbada in la khudbeeyo, khadiibku khudbeeyo, dadka wacdiyo, ilaahay xasuusiyo, salaadiina loo soo gaabiyey. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidka abu hurayra ku sugan wuxuu leeyahay idaa qulta lisaaxibika ansit yowma aljumcati walimaamu yakhdub faqad lagawta. maalinka jimcaad imaamkii oo khudbaynaya haddaad saaxiibka qofkii ku garab fadhiyey aad ku tidhaahdid aamus, laqwi baad la timid. faqad lagawta, laqwi. faqad lagawta maxaa laga wadaa? culummadii way isku khilaafeen, aaraa' kala duwanna way ka dhaheen. qaar waxay dhaheen waxaa laga wadaa jimcihiisii wuu buray oo waxa weeye duhur caadi ahayn u noqotay. qaar waxay leeyihiin wuu dambaabay. bal calaa aqali taqdiir ka soo qaadba maalinkaas fadligiisii iyo khayrkiisii iyo ajirkiisii inaad weyday. limaada? waxaa la diidayaa inaad khudbadii ka mashquusho iyo khayrkii socday. wuxuu kaloo nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waman massa alxashaa faqad lagaa. xashaaga quruuruxa dhulka yaalla qofkii masaxa oo saa u masaxa waa laqwi oo laqwi buu la yimid. waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta maalinka jumcaha ah la doonayo qofku inuu ilaaliyo inaanu maalinkaa ku gaaryeelin wax soon ah. waa karaahiya arrintaas. nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii abu hurayra wuxuu yidhi laa yasuumanna axadukum yowma aljumca ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdah. maalin jimcaad qofkii yaanu soomin ilaa inuu soo soomay maalinkii ka horreeyey ama maalinkii ka dambeeya uu soomayo oo labadaa maalmood isku daraya ma ogi. waa karaahiyo, arrintaa iyadaa lama ogolo. imaa inaad khamiis soo soontay oo khamiisiya isku bixisid maalin jimcaad, wa imaa jimcihii intaad soontid inaad ku daraysid sabtidana. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axadu saxaaba u arkay oo sooman, xaasaskiisii mid ka mid ay ahayd. wuxuu ku yidhi shalay ma soontay? maya bay tidhi. berri ma soomaysaa? maya bay tidhi. wuu u diiday marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka maalinka inaanan soon lagu gaaryeelin axkaamta maalinka jumcaad ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a axkaamta maalinka jimcaad oo sunno ah, nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhina ka soo arooray sunnada salaada jumca. ahlulcilmigu inay leeyihiin wax ka horeeya male oo sunno ah, sunna raatiba oo salaada jumcada ka horeyso male. macnaheeda ma hayaa la tukan,
laakiin sida duhurkii iyo salaadihii kale oo sunantu qaarna ka horeeyaan qaarna ka dambeeyaan iyada sunna mashruuca oo ka horeysa ma leh. laakiin waxaa wanaagsan hadduu qofki yimaado oo masaajidka yimaado intii ilaahay u qadaray inuu iska tukado taxiyatul masjidka ay u horeyso. waxaa axaadiista rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam ay tahay inuu nahiyey 3 waqti salaadood. qoraxdu marka casar la tukado qoraxdiina weli aanay dhicin salaad waa la diiday. markii fajar la tukado welina aanay qoraxdii soo bixinne waqtiga waa nahyi in la tukado. cirka bartankiisa markay qoraxdu maraysana in la tukado waa nahyi weeye. saddexdaba wuxuu ku cileeyey labada goor oo marna qoraxdu dhacaysa marna soo baxayso shaydaanka ayaa qoraxda isu dhiga oo dadka qoraxda caabuda ayaa qoraxda u sujuuda. marka shaydaankiibaa iyaga iyo qoraxda inta kala dhex galo oo is afuufo ayuu wuxuu iska dhigaa sidii in isaga la caabudayo. marka si aynan kuwa u shabihin ha tukanina oo waqtiyadaasuu nabigu nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa salaad markaa yacni sabab lama ogiye. waqtiga qoraxdu ay cirka ku aadan tahayna wuxuu yidhi jahannamo ayaa la huriyaa. laakiin maalinka jimcaha uu ka soo reeba nabigu calayhi salaatu wasalaam oo maalinka culammadu waxay leeyihiin intaad doontaad tukan kartaa. amaa haddii sunno la yidhaahdo nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxay saxaabadu keenayaan xadiiska saxiixa ah inuu 2 ragca ka dambaysiin jiray. 4 inuu dadka amray inay tukadaanne way soo aroortay. qaar baa iswaafajiyo waxay dhaheen hadduu gurigiisa ku tukanayana 2 tukan jiray, hadduu masaajidka ku tukanayana 4 buu tukan jiray. waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta maalinka jimcaad. qofku hadduu masaajidka soo galo imaamkii oo khudbaynaya inuu 2 ragca tukado. 2 ragca waa taxiyatul masjidki. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi qofkiin hadduu masaajidka soo galo yaanu fariisanin ilaa inuu 2 ragca tukado ma ogi. waa xaq masaajidku ugu leeyahay, waa salaan. mar walba haddaad ku soo hagaagto imaamkii oo khudbadii wada 2 ragco tuko intaadan fariisan. nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbaa isagoo khudbaynaya soo galay, wuu fariistay, wuu la hadlay, ma tukatay buu yidhi 2 ragco. mayuu yidhi istaag oo tuku yidhi. akhdaa'da insha allahu markaan ka warramaynane waa keeni doonaa khalad meeshaa ka dhaco. waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta maalinka jumcaad in la ilaaliyana loo baahan yahay oo mustaxabka ah in imaamku uu akhriyo salaada jumcaad qiraa'adeeda imaa suuratul alghaashiya iyo suuradda liya suuratul aclaa wa imaa 2 suuradood oo suuratul mulki yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlardi اlmaliki اlquduusi اlcaziizi اlxakiim ama iyo maaragtay suuradda kaleo ku xigto suuratu lmunaafiquun ah. waxaa ka mid a ikhwaanii fillaah aadaabta la doonaya inaan ilaalino maalinka jumcaad iyadoo aad iyo aad u fara badan. qofku inuu soo qubaysto. qubayska nabigu calayhi salaatu wasalaam waajib buu ku tilmaama. quslu yawmu ljimcati waajibun calaa kulli muxtalam. qof kasta oo qaangaaray waajib bay ku tahay buu yidhi. culummadu way isku khilaafeen. qaar baa waxay leeyihiin waa sunna mu'akada ee waajibnimada lagamada waajibkii asalka ahaa. laakiin waxaa weeye waa sunno markay u yaraata adag kada weeye. sidaa darteed qofku inaanu ka soo tegin. sidoo kale waxaa ka mid a aadaabtiisa inuu qofku isa soo udgiyo oo tiib uu soo marsado. ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu gaarsiiyey inuu yidhaahdo hadduu qofkiin wax kala waayo oo tiib kala waayo kii xaaskiisaa soo marsado. marka isa soo udgi. waxaa kaloo iyadana aadaabta ka mid a in uu qofku dharkiisa kuwa ugu wanaaga badan uu soo xirto. arrintaas qur-aanka ilaahayna wuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala. mar walbana qofka mu'minka ah maqaam aad istaagto waxaa ugu weyn markaad rabbigaa hor istaagaysa. isa soo qurxi marka. yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. saasuu leey rabbi subxaanahu wa tacaala. quruxdiina qaata iyo labiskiina wanaagsan cinda kulli masjid oo laga wada cinda kulli salaatin. salaad kasta marka aad tukanaysaan. ma aha inaad markaad xafladaha aadaysid
oo meelaha bani aadamku isugu yimaado iyo madaxda aadaysidne labiskii ugu dambeeyey aad xiratid ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad hor istaagaysidne aadan danka gelin ood iska soo qaadatid waxyaabo aan laa'iq ahayn. arrintaas waxaa weeye waxay ka alghaashiya iyo suuradda liya suuratu laclaa wa imaa labada suuradood oo suuratu lmulki yusabixu lilahi ma fi samaawaati wama fi lardi almaliki alquduusi alcaziizi alxakiim ama iyo maaragtay suuradda kaleo ku xigto suuratu lmunaafiquun ah. waxaa ka mid ah ikhwaanii fillaah aadaabta la doonaya inaan ilaalino maalinka jumcaad iyadoo aad iyo aad u fara badan qofku inuu soo qubaysto. qubayska nabigu calayhi salaatu wasalaam waajib buu ku tilmaama quslu yawmu ljimcati waajibun calaa kulli muxtalam. qof kasta oo qaangaaray waajib bay ku tahay buu yidhi. culummadu way isku khilaafeen, qaar baa waxay leeyihiin waa sunna mu'akada ee waajibnimada lagamada waajibkiis asalka ahaa, laakiin waxaa weeye waa sunno markay u yaraata adag kada weeye. sidaa darteed qofku inaanu ka soo tegin. sidoo kale waxaa ka mid a aadaabtiisa inuu qofku isa soo udgiyo oo tiib uu soo marsado, ilaa nabigu calayhi salatu wasalaam uu gaarsiiyey inuu yidhaahdo hadduu qofkiin wax kala waayo oo tiib kala waayo kii xaaskiisaa soo marsado, marka isa soo udgi. waxaa kaloo iyadana aadaabta ka mid a in uu qofku dharkiisa kuwa ugu wanaaga badan uu soo xirto. arrintaas qur-aanka ilaahayna wuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala. mar walbana qofka mu'minka ah maqaam aad istaagta waxaa ugu weyn markaad rabbigaa hor istaagaysa. isa soo qurxi marka. yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid, saasuu leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala. quruxdiina qaata iyo labiskiina wanaagsan cinda kulli masjid, oo laga wada cinda kulli salaatin, salaad kasta marka aad tukanaysaan. ma aha inaad markaad xafladaha aadaysid oo meelaha bani aadamku isugu yimaado iyo madaxda aadaysidne labiskii ugu dambeeyey aad xiratid ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad hor istaagaysidne aadan danka gelin ood iska soo qaadatid waxyaabo aan laa'iq ahayn. arrintaas waxaa weeye waxay ka